Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada xiisaha leh aad ku daawan doontaan haddii eebweyne laga helana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump oo sheegay inuu taageerayo Israa'iil haddii ay go'aansato inay dagaalka mar kale dib u bilowdo jasiiradda Comoros oo ay ka socoto wareegga labaad ee doorashada baarlamaanka Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Spain ayaa dhaleeceyn la yaab leh u jeediyay Trump. Haddaba maxay tahay dhaleeceyntaasi? Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku daawan doontaan. Balse faahfaahinta qodobadaas intaan u gudagelin haddii ay tahay markii kugu horeysa soo booqato YouTube-keena Barkulan Media, waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-ka subscribe saarto, aad gambaleelka furto, muuqaalkana aad like saarto. Sidoo kale saaxiibadaada u share gareyso muuqaalkan. Hagaag haddii aynu ku bilowno madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald J Trump ayaa sheegay in dalkiisa uu taageerayo Israa'iil haddii ay go'aansato inay dib u bilowdo ololaha militariga Gaza. Laheystayaashu waxay u muuqdaan kuwo xaalad fiican ku jira. Trump ayaa sidaasi ku qoray barihiisa bulshada. Israa'iil ayaa haatan go'aansan doonto waxa ay sameyn doonto waqtiga kama dambaysta ah ee loo soo rogay sideenta dhammaan laheystayaasha Mareykanka wuxuu taageeri doonaa go'aanka ay qaataan Israa'iil. Waqtiga kama dambaysta ah uu Trump kaga hadlayo waa horaantii toddobaadkan marka Xamaas laga sii deynayo dhammaan laheystayaasha. Macadda waqtiga dalka uu ka hadlayo, balse Trump ayaa horey u sheegay in Israa'iil ay tahay inay soo hurgufto haddii aanan loo hoggaansamin waqtiga kama dambaysta ah. Bilowgii toddobaadkan Xamaas ayaa sheegtay inay sii doonin dhammaan laheystayaasha iyadoo sheegtay in Israa'iil ay carqaladeysay qodobada xabajoojinta. Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhankiisa ka digay inuu soo afjari doono heshiiska xabajoojinta haddii kooxda hubeysan ee Falastiiniyiinta aysan sabtidii sii deynin laheystayaasha, taasi oo dhalisay jahwareer ku aadan dhammaan 73 la filayo in maanta la sii deeyo. Qorshaha dhammaan laheystayaasha maanta la sii deyn doono qayb ka ah heshiiska xabajoojinta, balse waxaa jira walaaca sii kordhaya oo toddobaadkan dhan laga qabay in dagaalka uu mar kale dib u qarxo. Waa hagaaga daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay caalamka, balse haddii aynu eegno jasiiradda Comoros oo ay ka socoto wareegga labaad ee doorashada baarlamaanka dalkaasi. Ugu yaraan 340 qof codbixiyaal ah ayaa maanta oo xad ah bilaaway inay u codeeyaan wareegga labaad ee doorashada baarlamaanka Comoros oo ku taala badweynta Hindiya si ay u doortaan xubnaha baarlamaanka oo 33 ah. Codbixinta ayaa furantay 8 subaxnimo waqtiga maxalliga ah, waxayna codbixintu socon doontaa ilaa 4 galabnimo. Maxkamadda sare ayaa fasaxday ku dhawaad 100 musharax si ay uga qayb galaan doorashada. Natiijada ayaana la filayaa in lagu guda jiro isbuucan sida ay sheegtay saraakiisha guddiga doorashada. Wareegga koowaad ee doorashada ayaa dhacday 12 bishii Janaayo, balse waxaa qaadacay xisbiga mucaaradka ugu weyn ee JUA, kaasi oo ku andacoonaya in codbixinta ay ka maqan tahay daahfurnaan isla markaana ay tahay dafarsi. Sida laga soo xigtay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, xisbiga talada haya ee Convention for the Reward Comoros ayaa ku guuleystay 28 ka mid ah 33 kursi. Comoros oo ay ku nool yihiin 850 qof waa jasiirad 3 jasiiradood oo ka baxsan xeebaha Afrika kuna dhow Madagascar. Waxa ayna hareereysay afgambi military oo xiriira tan iyo markii xorriyaddu ay ka qaateen Faransiiska sanadkii 1975. Madaxweynaha haatan Azali waxa uu xukunka hayay tan iyo 2016 wuxuuna kordhiyay waqtiga xafiiska afti dastuuri ah ilaa iyo 2018, taasi oo meesha ka saartay xadidaadda muddada madaxweyne. Waa hagaaga daawadayaal, waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii qodobadii caalamka, balse haddii aynu eegno Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Spain ayaa dhaleeceyn la yaab leh u jeediyay madaxweynaha dalkaasi ee Mareykanka. Ra'iisul Wasaaraha Spain Pedro Sanchez oo wacd ku maray inuu la dagaalami doono qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump uu ku doonayo in lagu barakiciyo Falastiiniyiinta oo ah in Gaza laga dhigo River of Middle East. Hogaamiyaha xisbiga hanti-wadaagga Spain wuxuu ku adkaystay taa beddelkeeda xal laba dowladood oo Falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo ay ku noolaadaan nabad iyo wada noolaansho iyo badbaado.
horaantii bishan Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu la wareegi doono uu yeelan doono Gaza isagoo ku dari doona dhammaan dalalka deriska la ah si ay ugu helaan meelo ay ku noolaadaan oo ay ku horumariyaan hantida maguurtada ah ee raaxada. Sanchez-ka Spain ayaa sidoo kale canaantay hadaladii uu dhowaan ka sheegay magaalada Munchen madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance kaasi oo ku baaqay madaxda Yurub inay bilaabaan dulqaadka ay ku qabaan xisbiyada midigta fog. Sanchez ayaa ku eedeeyay kooxaha midigta fog ee Spain inay ka fogaadaan dhaleecaynta madaxweynaha halka ay ku soo rogaal celiyaan canshuuraha badeecadaha Yurub. Labada wadan sida Spain iyo wadamada midigta fog ee uu hogaaminayo sida Hungary iyadoo ay jirto hanjabaadyo Mareykanka ku soo rogay wadamada Yurub. Ra'iisul wasaaraha Spain ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo dagaalka ganacsi una u dagaalami doono danaha shaqaalaha Spain. Sanchez ayaa sidoo kale sheegay in Spain ay ka hortagi doonto kuwa doonayo inay kaligood u hanjabaan sharciga caalamiga ah una dagaalamaan dhinacyo badan. Waxa uu sheegay in marka laga wada xaajoodo nabadda Ukraine ay bilaabaan mustaqbalka kasta oo Ukraine ah. Waxa uu soo maray hoggaanka Ukraine wadahadal kasta oo ku saabsan amniga Yurub waa in lagala xaajoodaa wadamada Yurub. Ka sokow hogaamiyaha Spain, Sanchez sidoo kale waa madaxweynaha Socialist International oo ah urur kor u qaada hanti wadaagga dimuqraadiyadeed ee caalamka. waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa qodobadii ugu muhiimsanaa caalamka, balse haddii aad nala soo gaartay dhammaadka qodobadan waxaan mar labaad ka xusuusanayaa inaad YouTube-keena subscribe saarto oo aad gambaleelka furto, sidoo kalena muuqaalkan aad like saarto si saaxiibadaada uu gaaro.